adigu waa inaad adiga ahaataa. adigu si aad adiga u ahaato waa inaad adiga ku kalsoonaataa. adigu si aad adiga u kalsoonaato waa inaad adiga aamintaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalkiin maxamed idinka codsanaya fiidowga shargalashaan insha allahu tacaala. waxaan rabaa walaalayaal inaan ka hadalno maanta mowduuc aad iyo aad u muhiima, anigu nafsi ahaan aan dareemayo inuu muhim u yahay, adiguna insha allahu tacaala aad la dareemi doonto inuu muhim u yahay. mowduucaasi waa maxay walaalayaal? waxa weeyaan hiqatu nafsi, ku kalsoonow naftaada. adigu inaad adiga ahaato macnaheedu waxa weeyaan markii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku abuurayay oo ilaahay ku jirsiinayay waxaad ahayd keligaa baad ahayd. markaad dhimanayso oo ajashaadu ay dhammaato, maalinkaad dhimanaysaa waxa keliya ku raacayaay waa camalkaaga. adigoo keligaaya ayaa qabriga lagu geynaya. arrinkaasi wuxuu inoo tilmaamayaa qofku intuu adduunyada joogo in uu keligii isku kalsoonaado. cidda keliya aad u baahan tahay inay ku kaalmayso, ku caawiso waa ilaahaygii subxaanahu wa tacaala ku abuuray oo keliya ayaad u baahan tahay. rabbiga khaaliqa ee ku jirsiiyey oo keliya ayaad u baahan tahay inuu ku kaalmeeyo. isaga ayaa tala saaranaysa. haddii aad isaga tala saarato wax kaa xumaanayaa ma jiraan. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waman yatawakkal cala allaahi fahuwa xasbuh. qofkii ilaahay subxaanahu wa tacaala tala saartaa rabbi subxaanahu wa tacaala waa ku filan yahay. haddaba ha eegin dhaliisha dadka, ha eegin dadka insaanka ah waxa ay sheegayaan ama adiga ay kaa sheegayaan, ha eegin. limaada? lianna rusushii dadkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu doortay, ambiyadii ayay insaanku dhaleecaynayeen oo ay wax ka sheegayeen. adigoo bini aadan yaroo daciifa ah maxaad u malaynaysaa inay kaa sheegayaan? insaanka dabeecadiisaa ah inay wixii ay arkaan qofku qofba uu si u arko. waxa aad samaynayso, camalka aad samaynaysaay, qof baa khayr iyo wanaag u arkaya, qof baa shar u arkaya. marka ha u joojinin waxa ay dadku sheegayaan. keliya adiga aamin, ilaahayna subxaanahu wa tacaala tala saaro. ugu dambayntii waxaan rabaa inaan ku idhaahdo walaalkayow ama walaashayay, adigu waa inaad adiga ahaataa. adigu si aad adiga u ahaato waa inaad adiga ku kalsoonaataa. adigu si aad adiga iskugu kalsoonaato waa inaad adiga aamintaa, naftaada aamintaa, ilaahayna tala saarataa. guul walba waad gaadhi kartaa haddii aad laba arrin la timaado: dadaal iyo ilaahay oo aad tala saarato. rabbi subxaanahu wa tacaala baa wax walba kuu fududayn kara. ilaahay subxaanahu wa tacaala tala saaro. asalaamu calaykum waraxmat ullah.